saddexdan wiil ee walaalaha ah iyo mid kale oo la dhashay oo aan wax badan dhaamin ayaa muddo 13 sano ah la xanuunsanaya xanuunka dhimirka sida ay noo sheegeen ehelka wiilashan. hooyada dhashay wiilashan iyo gabar la dhalatay wiilasha xanuunsan ayaa la tacaalaya xaaladooda inkastoo hooyadu ay xanuunsan tahay gabadhuna ay haysato caruur agoon ah. nolosha qoyskan ku xeeran waa mid adag marka loo eego xanuunka wiilashooda iyo nolosha ay ku nool yihiin qoyskan. hooyo Waris Axmed ayaa ka sheekeynaysa xanuunka wiilasheeda iyo muddada ay la soo dhibaatoonaysay. nimanka oo maxay haytay ka ugu weyn waa Qadar Ismaaciil Yuusuf, Liibaan Ismaaciil Yuusuf, Yuusuf Ismaaciil Yuusuf, ka kalena wax Abdi Ismaaciil Yuusuf baa la yiraahdaa. isagu waa ku dul wareegaya ma hadda ma xidhna, isagu silsilad kuma xidhna, laakiin waxba ma dhaamo. waa nin iska aan waxba dhaamin oo qaad cunaho maxay haytay iska qababa saa dhulka wareegaya. qof aan xooggiisana waxba ku shaqaysanin, xanuunna ku jiro, daroogana cunaya, xaaladiisa waa iska ninkii wax fahmi karaa wuu fahmaya. marka xaaladdu waa sida aniguna waxaan ahay qof weyno maxay haytay hadda si jugo badan baa gaadho, way dildilaan in badan oo hadda waxaan kula lugahan way kala wareegsan yihiin dhamaanta jirka. haddaan hadda awood aan ku aado dhakhtar iyo meelna mali oo waxaasaan noo jooga xidhan. waxay rabaan wasaqda qaar baa ismarinaya oo saaysu marinaya oo aan taanis kala hayn. hadda waxaan kicidi baan gabayba hadeer oo yaa rabbi u taagana. qaar ka mid ah ehelada qoyskan ayaa ummadda islaamka ka codsaday in la soo caawiyo qoyskan dhibaataysan. waxaan codsanaynaa dadka muxsiniinta ah ee wax la yiraahdo wax la baxa ee dadka dhiban ee taakuleeya, waxaan ka codsanaynaa dadkaas inay soo taakuleeyaan insha Allah bismillaahi kariim. hadday hay'ada tahay, hadday baayac mushtar tahay, hadday dawladda Puntland tahay iyo ciddii kaleetoba waxaan codsanaynaa insha Allah inay soo taakuleeyaan dadka muxsiniinta ah oo khayrka qaba oo meel walba gudo iyo dibadba jooga. waxaan u shaacinaynaa inay kaalmeeyaan oo wixii nin walba awoodiisa uu qabto. akoon iyo lambar baan u samaynay. intaasba waxaanu doonaynaa insha Allah markay hawshu naga tanbadatay hawlahaas wadanka ka dhacay dhaqaale xumada ahi ayaanu awal waa qarsanaynay, waxay anaga la gargaleynay, laakiin hadda dheerey naga soo baxday oo waa qarsan weyn. walaalayaal khiyaar dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan dibadiyo gudaba waxaanu idinka doonaynaa caawino nimanka dhalinyarada oo sidaa u xiran oo intaas oo soo xiraa 29 baa kii ugu horeeyay waashay. kadibna kii hayay baa ka daray, kii kale oo saddexaad baa ka daray, kii afraadna hadii wuxuu noqday in iska wareegayo waxba ahayn. hadda xaaladdu sidaas halkaas ay taagan tahay. Cabdiqani Boosas, BC Boosaaso.